بسم الله magacayga waa Bashra Cabdullaahi Ismaaciil waxaan tiriyay buug suugaaneed kan buugani waxa ku joogan suugaan oo kaliya suugaanta qaybteeda maasada waxaana ku jirta suugaan aniga ayaan curiyay runtii buugan waxa ku jira maansooyin badan maansooyinkaas aan kaga hadlayo waxyaalaha muhiimka ah haday noqon lahayd calankii dal jacaylkii qabyaaladii dhalinyaradii anoo bogaadinaya dadka duruufaha ku koray sida ilmaha yararka darbijiifka waxyaalahaas aan kaga hadlaya runtii buugan marka qorayay ka hor intaan buugan qorin waxa jirta suugaan aniga aan tiriyay walow ay meel badan video aan u sameeyay laakiin waxa go'aansaday inaan dhaxal sameesto marka nafteeda ay u dhiirigelisay maadaama waxaan aan aniga curiyay ma waa buugay ugu horeeyay waxaan doonayaa buugaag badan inaan soo bandhigo insha Allah qof walba waa la awr laakiin waxa jirta caqabad ka hor istaagaysa qofka inuu wax soo bandhigo taasoo ah cabsida waa guuldarada qofka hadii qofku uu cabsanin waxa u suurtagelaysa wax badan inuu dadka la wadaago marka waxaan dhihi lahaa dadka hal awoollada ka faa'iideysta waqtigeena soona bandhiga wax qabliyadiina ka gooxaya waxaan jeclaan lahaa inaan arko dad badan oo hal awoora dad badan oo qoraala maadaama aan dad Soomaaliyeed hadana aqrisku nagu yaryahay hadii aan wax badan aqrino waxaan ogaanaynaa waxa dunida ka socdo buugan waxa ku jira maansooyin badan hadii aan maansooyin soo qaato waxa kamid ah maansal loo magac daray dal jacayl dulucdeeda waxa kamid ah waxaan ahay daayar dumar damiirkeedu badan yahay dulinimana ma ogoli dalkan Soomaali baa leh geesinimo u dheer tahay gardarada ma doonaan dalkeena Soomaaliyeed gardargelinta laga wado dabina oo qarsoone dadkeega ogaada maansada kale ayadana calanimo oo ah maansadeeda ugu horeysay dulacyadeeda waxa kamid ah calanimo haduu jiro hadii lagu ciseeyo ciidaada meel kale calan lagama taageen dadoono calankeegi caafimaadka nolosho cadowga ma ciil baxo calan yahow adiga aniga imadasha ana caana iyo nabad inaad ciil baxdaabaan caadilkay ka tuuga sidoo kale waxa jirta maanso aan ugu magacdaa qiimihii qarankaatiin taasi ah ardada intay wax ku baratay ama jaamacadii markay dhameeyeen ayagoo xaq u heli kara inay wadankooda ka shaqeystaan hadana dad qurbaha ka yimaado booskooda buuxinaya maansadaas waxa ugu magacdaray qiimihii qarankaatiin dulacyada maansadaas waxa kamid ah qowmiyadaha adduunyada qaran wuxuu ku faanaa qalinka la qaatiyo afka qiimo yeeshay ana waxaan qiyaastay qiimeynayaa inta qalinka qabatay maskaxdooda noo qabay markaad qaaday qalinkii tacliintaadii bilowday caqabada intay timid ilmada burqanaysa iyo qalbiga soo kama barooran wixii qalad dhacay qasaaro adigu qalad ma lahayn qasay ku wada ahayd aqoontu qasaaro maaha qabiilka ku qaabil maaha taajirkii faqiirkay runtii qiimo yeeshaa wadaninimada ka buuxdo calankii dal jacaylkii dhalinyaradii ciidankii calankii duruufaha ilmaha ku koray sida casayaasha kale maanso waliba qasideeda ayaan u sameeyay oo igu dhalisay inaan curiyo